ururka Malool ayaa deeq biyo dhan 230 booyadood biyaha soo gaarsiiyay deegaanada hawdka ee gobolka Togdheer. Deegaanada biyaha la soo gaarsiiyay waxaa ka mid ah Zuriyo, Cadawyurura, Ali Saahid, Ceeg, Xangeeyada, Qabri Gorod, Harada, Bisiqa, Dhacadiid, Xuseen Xamar, Bicilweyso, Labiguun iyo Balihile iyo deegaano kale. ururka Malool maaha markii uu horeysay ee deeq biyaha iyo deeq kale uu soo gaarsiiyay guud ahaan gobolka Togdheer oo muddooyinkii u dambeeyay abaar iyo biyo la'aan baahsan ka jirtay oo maalinta ka dambaysa ka sii dareysa. dadkii deeqda biyaha la soo gaarsiiyay ayaa gabi ahaanba uga mahadceliyay ururka Malool deeqda biyaha ay soo gaarsiiyeen waxaana ka codsadeen inay wixii akraankooda ay ku soo caawiyaan walaaladooda abaarta iyo biyo la'aanta baahsan la tiicayeen maalinta ka dambaysa ka sii dareysa. deeqda biyaha waxaa loo soo wakiishay Daahir Xuseen Xasan. biyihii ay ku soo deeqay ururka Malool community ee qurbo joogta deereyahan iyo qolqol joogba waa ku jirtaa biyaha ay ku soo deeqay maanta halkan ka amba bixinaynaa insha Allah imika halkan wax diyaar ku ah agteena taagan booyadihii oo imika diyaar garoobay oo imika la diraayo booyada gaari doona baan diri doonaa 32 booyadood baan diri doonaa hadii Ilaahay ka dhigo tuulooyin badan baan u qaybin doonaa inta ay gaaraan insha Allah inta ay gaaraan baan gaarsiin doonaa qaar bas leh kala baahi badan yihiin qaar laba booyad loo diriyo qaar saddex loo diriyo qaar looga badiyo qaar looga yareeyo intaba waan diri doonaa insha Allah bismillaah kariim dadka muxsiniinta ah wax soo bixiyay ee wax soo dirayna aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay Ilaahay idinka jazaa siiyo halkii aad ka soo saarteen Ilaahay wax khayr leh Ilaahay idin geliyo waxaan leenahay soo dadaala baahidu way sii badanaysaa duruuftu way sii adkaanaysaa waqtigu mar walba sidii hore waa iska sii bedelayaa xaalad adag baa la sii gelayaa intani kolley tii u dambeysay noqon mayso insha Allah ee qaar kale badan oo ka dambeyn doonaan waxaan leenahay soo dadaala insha Allah bismillaah kariim qurbo jooga ururka Malool ee dareeyahan weyni marka waxaan diraynaa maanta booydihii u horeeyay baan ka diraynaa waxaan u diraynaa dhulka lagu haraaday ee loogu talagalay in la gaarsiiyo oo ay ka mid yihiin Cadawyurure, Ali Saahid iyo Ceeg, Waraabeeye meesha la yiraahdo hadii Balihile, Qabri Gorod, Xangeeyada, Bicilweyso, Bisiqa dul badan ayaan gaarsiinaa hadii booyadaasi oo tiradoodu dhan tahay 230 booyadood waxaan u diraynaa hadii la yiri intii horeysay baan diraynaa waxaan u mahadnaqaynaa ururka Malool ee ku soo deeqay booyadaha si dadkooda jilicsan ee abaartu hayso ugu deeqaan waxaan leenahay jasaakumullahu khayran Allah idinka abaal mariyo dadka kale ee muxsiniinta ah ee dal dibad iyo gudaba waxaan iyagana leenahay hal lagu daydo oo sidaas oo kale fadhiga laga kaco oo loogu soo deeqo dadka tabaalaysan ee abaartu haraadka iyo imika way ka sii xaaladdu way sii kululaatay waxa weeye jilaalkii ba sii dheeraaday marka waxaan leenahay hala sii laba jibaaro hala dadaalo jasaakumullahu khayran aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ururka Malool Ilaahay meesha ka soo saarteen beel khayr leh wax run haydi ku bedelo inamadaana waxaan leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin biyo horeeyay waanu haynaa waanu ka cabnay waanu haynaa wacabaynaa hadii Ilaahay noo calfo way noo shubaysaa waan mahadcelinaynaa ee biyahan soo gaarsiiyay imikana waanu uga baahanay wixii ay noo helayaan biyo iyo baad jaaliyada Malool ee biyaha noo keentay horaantooda waan ku haynaa baad iyo biyo u baahanahay dadkana abaartu aad u haysaa waxna laga iibsan maayo maanta wax biyeystaan ma jiraan waxaan leenahay war baad iyo beenkii tolkii wuxuu soo kordhay waa loo baahay soo kordhay Malool baa la yiraahdaa baa la yiri qolada iskaashatay ee caawimadana soo gaarsiisay ururka isaga ah ee magaca leh Malool la yiraahdo biyo qaybtii u horeysay imika waa naga afka ku haynaa cabayna haddaan reer Cadawyururanahay waqti dheeraaday oo adkaaday abaar dheeraatay baan haysaa dadku haddii alla ka dhigayo baahi fara badan oo wax la cunay iyo wax la cababa ayay waqtigu u hayaa haddii aan qaybtii horeysay noo keenteen waana nagu yar yihiinoo biyo horey waa noo keeneen waana ka haynaa
haddii alla ka dhigayo wakhti dheer baan nahay oo biyo baadba waan u baahannahay xoolaha iyaga iminka biyana ma gooyaan baadna ma gooyaan waxaan leeyahay hanaloo soo kordhiyo malool la yidhaaho mahadnaqaynaa ilaahay mahadi malool waa u mahad celinayna waana u baahannahay hay'adda la yidhaha malool waanu guddoominay waanaanu ku mahadnaqaynaa laakiin sida kale aanu u jilicsannay haddii dee ilaahay wax nooga soo dhiibayo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa marka malooleed deeqdii ugu horreysay way noo timi maxad baanaanu ugu naqaynaa waxaana soo gaadhay biyaha ay bixisay ururka malool horraantoodii booyaddii ugu horraysay iminkay taagantoo biyaad noo shubaysa mahad ilaahay baa iskale mahadcelina waxaan u celinaynaa dadkaa soo bixiyey biyaha iyo taakulada aad iyo aad waxaan u soo dhowaynaynaa biyaha maanta naloo shubay waxaa soo bixisay ilaahay kasha ay siiyee qolo ururka malool laydhahaa soo bixiyey halkan waxaan ka salaamayaa inaan dee waa aragtaano biyihii baa shubmaaya biyahana ilaahay wuxuu u dhiibay oo u keenay ururkii la odhan jiray inaan malool baa keentay maanta qof kastoo arrinka halkaa ka arkaya dadku waa isku wada mid marka hore horta oo abaaraha ka jira waddanka iyo kulayl qof kastoo aanu halkan uga sheegaynaa dee inuu dadkooda soo xusa waa muhiim gaar ahaan waxaanu u sheegaynaa nimankan malool ee ururka way mahadsan yihiin waanu mahad celinaynaa waxa mahad leh ilaahay waxaanu mahad celinaynaa ururka la yiraahdo malool awalba way ka qayb qaadan jireen sanad kasta abaara dhacaan iyo kulayl ilaahay ha gargaaro way ka qaadan jireen abaaraha waxa yimaada walaaladood waa la qaybsan jireen waa uga mahad celinaynaa waxaan walaalayaal idin sheegaynaa dadku dee xaaladooda waanu idinka warrannay biyana waa u keenteen maalinta qiyaamana ilaahay xasanaadka miisaanka ha idiin saaro waxa walaalay u baahan yihiin dadku odayaashii baanu noqday inaanu hadallaan idiin soo sheegna xaq baanu u yeelannay dee waxay u baahan yihiin wixii kale macluumaad ahaa waa ka maran yihiin walaaladiin awalna waa ku soo taageeri jirteen oo waa u keeni jirteen oo raashin hadday tahay iyo biyo hadday tahay labadaba waa laydinka bartay intaba waa keeni jirteen ilaahay baa mahadle ilaaha casaawajile faqururxiinkaa baa mahadle waxaannu u mahad celinaynaa jaaliyadda soo xustay tolkood ama dadkoodii ee la yidhaa malool ee biyaha aragtaan noo keenay ilaahay waxaannu ka baryaynaa in miisaadka xasanaadka ilaahay u saaro intaasi waa duco 1 milyan oo qof oo halkaa tuban baa iniin ducaynayo waana arkaysaan ducada ku talagala waxaanaannu idinka codsanaynaa walaalayaal rabadaanna way soo dhowday bishii khayrka lahayd baa soo dhow dadkuna 90% hidima baayaa raashin waxaannu doonaynaa inaad raashin noo keentaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxaannu salaamaynaa oo salaan aad u qiimo badan ku salaamaynaa ururka jaaliyadda malool waxaannu leenahay walaalayaal deeqdan aad noo keenteen ee biyaha ah aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin waanaannu u baahnayn baahidiina weli wayna haysaa waxaannu walaalayaal leenahay idinka oo ku mahadsan oo ilaahay ka sakow ku mahadsan tihiin waxaannu u baahannahay waxtar ballaadhan oo aan biyaha oo qura ku koobnayn raashin baannu u baahannahay maxaan idhaahdaaye waxaannu u baahannahay biyo kale baahidu halkeedii bay weli taagan tahay halkan aannu ka hadlayno waa cali saahid waxaa jooga dad fara badan oo aad u fara badan waxaana soo gaadhay qaybaannu u helay 6 booyadood markaannu sii qaybsannay 2 foosti iyo 8 daraan baannu u helnay waxaannu leenahay dee qiyaasta ina sidaa noola socotaan baannu u baahannahay waxaannu aad iyo aad idinku salaamaynaa 6666 aayadooda qur-aanka wuxuu yidhi ninka la odhan jiray cabdigahayr oo isqawiciyo tolkiisu qawicinayay nin qatani nin qada haysta waa inuu ku quustaayo qasnadaha raatiya wuxuunbaa ka soo qubanne oo idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hayaga malool dalka iyo dibadda meesha joogaan waxa weeye jiilaalkii ama abaarihii imika
ayuubay kaba tosheen waxa weeye inta ka hadhay abaaraha way yar tahay laakiin waa inaan laga bixi karin adoo walaalkaa tabantaaba ama taageero ku siiyo mooyaane waxa weeye wixii wanaagsanaa ee arsaaq ahaayee ayna bareen ururka Malool ayaanu doonaynaa inay imika si degdega bishaa Rabadaan ee khayr kale inay nala soo waayo caawimada hay'adaha waxa la wuxuu wayna dhaafaan marka subxaana wa tacaala ilaahay waxaanu mahad dadkii Malool group biyaha noo soo diray dadkii ay u talagaleen ceeg deegaanka ceeg wayna soo gaareen waana suwayna markaa waxaan ilaahay u ka baryaynaa misaanka xanaadka inuu idiin geliyo halkii ay ka geysay meel wax ka qayb qaban inuu ku bedelo anaguna waan iska guddoonnay waa ku mahadsantihiin baahiduna waa fara badan tahay haddii ilaahay ka dhigo markaa intaa